waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. daawadaha qiimihi badan kusoo dhawaaw muuqaalkeena xiga. sida ciwaanka sare aad kasoo aragtay sida aad applicationkaaga Facebook locationka ugu bedeli lahayd ayaan isla eegi doonaa. hadduu idmo laba option ayaa isla mari doonaa insha allah. intaana muuqaalkan gudagelin fadlan waxaa kaa codsan lahaa haddii channelkan ku cusub tahay inaad subscribe ina saartid muuqaalka la gelisid. sidaas lamid ahna maxaa kala ku dhihi karaa adiga ayaa iska garan karo oo commenti wixii dheeraad adiga u baahan tahay ama aad ku haysato nagala soo wadaag insha allah. bal yaan hadalka ugu daalin muuqaalka faahfaahsan isla daawan. ugu horreyn waxaad tagi doontaa applicationkaaga facebookkaaga. markaad sidan u imaadid waxaad tagi doontaa three dotskaas ayaa imaan doontaa. three dotskaas markaad tegtid waxaad samayn doontaa ku dhufo kadibna hoos u bax. markaa hoos sidan ugu soo baxdid waxaa ku dhufan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay setting and privacy. markaad ku dhufatid qaabkan ayuu ku noqon doonaa. kadib waxaa kasii xulan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay settings. markaad ku xulatid qaybta settingii ku dhufo. markaa settingii sidan ugu dhufatid kadib waxaa ka xulan doontaa hoos ayaad u wadi doontaa. hoos markaa sidan ugu wadid ilaa aad ka arkaysid qaybtan ay ku qoran tahay location. qaybtaas location ay ku qoran tahay ayaa ku dhufan doontaa. markaa sidan ugu dhufatid locationka uu ku soo qabtay waakina uu ku imaaday. haddii aad iPhone wadatid qaybtan ayuu wuxuu ka soo qaban doonaa in maaragtay usagekaas aad furtid. anada qaybtan ayaa u baahanahay ay ku qoran tahay go to device settings ayaa ku dhufan doonaa. markaan ku dhufto laba option ayuu ii soo qaban doonaa. option oo ah in maaragtay aan ka isticmaaleyno not now iyo wuxuu dhahayaa Android settings inaan tago. marka Android settings ayaa xulan doonaa. marka qaabkan u xooto wuxuu ku keeni doonaa qaybtan ay ku qoran tahay permission. markuu ku keeno permissionkaas ayaa xulan doontaa. marka sidan u xulatid locationka waa kana. marka asking every time in markaas every time oo markaas su'aal ku weydiiyo locationkaaga iyo maaragtay allowing only while using the app. waqti walbo oo Facebook isticmaalaysid inuu ku furnaado. marka intaas ka dhigo ama do not allow location wax location iyo barnaamijkaas uma baahnaa dhihi kartaa. hada locationkii uu ka bax halkan u imaaday. optionka kale aan kula wadaagaa waxay tahay qaybtan settingiga ayaa imaan doontaa. settingi markaa sidan u imaadid waxaad tagi doontaa qaybta ay ku qoran tahay abis raadi. abis ku dhufo. abiskaas markaa ku dhufatid kadib qaybtan wuxuu ku soo qaban doonaa hadduu idmo applicationkaaga Facebook ayaa raadin doontaa. Facebook application ku dhufo. applicationka Facebook markaa ku dhufatid qaybtan ay ku qoran tahay permission ayaa kusii dul dhufan doontaa. permissionka markaa ku dhufatid kadibna locationka waa kana. intan waa ka bedeli kartaa xaggan waa ka bedeli kartaa insha allah bismillaahi karim. maanta muuqaalkan gaaban waxaan ugu talagalay inay asxaabta ku xiran application ay ka faa'iidaan si aan aniga uga faa'iiday oo maaragtay locationka inuu wax badan haayaan ku ogaaday. sidaas alaala ajeedaan kula soo wadaagay. fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay inuu la garay sidaas lamid ah muuqaalkan saaxiibadaada qiimihi badan la sii wadaag. sidaas lamid ahna kanaalka subscribe garayso ama rukumo ama wehel ka dhigo si aad adiga jeceshahay. haddii aad waxba ka qabin oo aad leedahay waxba kama qabo inaan idinku soo biiro waxaan kugu soo dhaweyn lahayn gacmo furan qalbi furan insha allah. soo dhawaaw oo kanaalka subscribe saaro muuqaalkan xaqiisa sii insha allah bismillaahi karimta. inta kulmi doono muuqaal aynkan oo kala biidinkii. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. see you another next video.